live trading keeni maanta aan ku wada qaadanay yani ardada live roomka sida arkaysaan tradekan buy baa ugu jirnaa lacagta daabka asalkan waa 25 bps halka full targetkeenu yahay 70 bps tradekan waa tradekeeni labaad maanta tradekii kan ka horeeyay asal baan qaadanay so inshallah waxaan rajaynayaa inaan full recovery sameeyno sida aragtaan hadda tradeka drawdown buu noo qabtay wuuna naga soo saaray alxamdulillah runtii asbuucan suuqa aad buu u liitaa sidaan hore u sheegay correction week buu ku jiraa dib buu suuqa isku saxayaa kadib all time high la sameeyay iyo daadashadii asbuucii hore dhamaadkiisa la sameeyay kadib markii heshiis laga gaaray arrimihii ganacsiga ee Mareykanka iyo China u dhaxeeyay si lamida interest cutting la sameeyay hadda waxaan dhaca lagu hayaa warbixinada waaweyn ee NFP-ga uu kamid yahay ee maanta soo baxay soo sida aragtaan alxamdulillah movement aad u fiican baa yeelay tradeka waa break fan gareynay 50% markuu noo gaaray soo kala profitka 50% baa ka xiranay ugu dambeynna movement aad u qurux badan baa nala siiyay all the way ilaa 100 bps ka badan buu suuqa dhaqaaqay laakiin anaga waxaan kaga baxnay targetkeena live-keena maanta intaas ku eegay nabadgelyo